xamlada markii jidda ay ku degto waxay samaynayaan laba qeybay kala yihiin. dad waxay ku leeyihiin intii markaan xajka iyo cumrada aan dhammaysana aan madiinati rasuulillahi aadi lahayn haddaan haysanaa xajkii waqti dheeraa ka dhiman, marka hadhow sidii aan uga aadi lahayn haddaana aadayna. marka jiddaa lagaa qaadayaa, gaari ha lagugu qaado, diyaarad ha lagugu qaado, tareen ha lagugu qaado, jiddaa in baas lagugu qaadaa badan, madiina lagu aadinaya. marka waxaa lagu leeyahay madiina siyaan isaga sii dhammayno oo hadhow xajka markii noo dhammaada baan iska safarno, waa ku hormarinaya, dhib ma laha. madiina in la tagaahu xajka iyo cumrada ka mid ma ah, laakiin maadaama dhulkaas oo qiimaha badanna aad mar tagtay inaad madiinati rasuulillahi iyo masjidkiisi aad soo aragtid waa wax weyn waaye. laakiin wax shaqa kule dadaa waxay gu leeyihin aniga sanadkan waa xaji waana cumraystay laakiin madiinadii ma aadin oo xajkayga khalalaa gaaray. maya, xaj iyo cumro iyo in madiina la ziyaarta laba isku shaqaa ma ah. madiina keligeed waa ziyaaro karta adoon xaj iyo cumro la imaanayn, inaad xaj iyo cumro inta la timaad kasoo laabatid aa heli kartaa, inaad labadooda isku soo martidna waa heli kartaa. horta wax isku xiran ma ata, horta in la fahmo oo wax shaqa ay ku leedahay ziyaaratu madiinati rasuulillahi ama masjidi rasuulillahi xaj iyo cumro shaqa kuma laha. laakiin ummadda muslimiinta waxay u tegayaan maadaama dhul dheer aan ka imid masjidi rasuulillahi inaan soo arko waa fursatul cumri waana wa fiican tahay hadalkaas. kow marka waxa weeyaan jiddaad ka degtay madiina u sii socotaa, ama xajkii cumradii aad dhammaysatay madiinaad u socotaa, waxaad niyeysanaysaa qabriga nebiga ina ziyaarat ma niyeysanaysa, waxaad niyeysanaysa ziyaaratu masjidi rasuulillah, masjidka inaad ziyaaranaysid, liannahu ziyaara qabri in loo safro ma banaana cala alqowl araajix, laakiin masjidka in loo safro waa sharci. laa tushaddu rixaalu ila ilaa 3 masaajid buu nabigu yiri, waa masjidkiisa iyo masjid alxaraam iyo masjid alaqsa oo filistiin ku yaalo. saddexdaa safar dheer waa loo geli karaa. marka masjidka nebiga inaad ziyaaratid aad u niyeysanaysaa intaad u sii socotid. kow intaa u sii socotid lamid ma aha markaad xaramka u socotid oo kale. ninka hadduu cumro ama xaj soo galo oo xaramka u socdo labeyk allaahuma labeyka labeyka yuu ku celcelinaa. laakiin masjidka rasuulka haddaa u socotid wax oo lagaa rabood akhrinay ma jirto. adiga ilaahaygaada iska xus, cibaa quraan akhriso, ilaahay bari, dikriga u sameey, nin caadi a baa tahay. kow masjidka rasuulkaa tagtay, masjidka rasuulka mara tagtid dhihi maysid nebigan ziyaaradiisa ka bilaaba taxiyatulmasjid, masjidkaad samaynaysaa. horta masjidka salaamtiisa waa 2 ragco lagu dukado. 2 ragca hadday kuu soorogeli karto masjidkii hore uu nebiga asaasay haddaad ku duka kartid way fiican tahay. haddii deed muslimiintii oo dhammaa wada jooga cariiri ay kuu soorogeli waysane masjidka weyn oo intaasoo kilomitira meel ka mid aad kaga dukanaysa. laakiin in lagu dukada rawdada yar uu nebigu yiri maa bayna mimbari wa beyti rawdatu min riyaadi aljanna. nebiga mimbarkii uu ku khudbayn jiray iyo maxaan ku irahdaa iyo nabiga maxaan ku irahdaa masjidkiisa meeshuu ku egyaho qabrigiisa uu ka bilowdo inta u dhaxayso rawdatu min riyaadi aljanna. waxaa loo jeedaa camalka meeshaas lala yimaado waxaa lagu mutaystaa janno in lagu galo. maahan hadda jannadii meeshaad julub tiri ma aha, laakiin min alashyaa alatii tusabibu laka aw tusahilu laka dukhuula aljanna maa bayna beyti wa mimbari rawdatu min riyaadi aljanna. marka waxaad arkaysaa dadka aad bay isugu cariirinayaan, dadaa saf dheer uu galayo oo sugayo ilaa mar ay furso ka helaan. waxaan u malaynaa dumarka iyo raggana waa la kala tartiibiyaa, marna dumarka loo fasaxa marna ragga. sida xaramka oo kale dadkii la kala ma bixi karo, waa la isku dhex yaacsan yahay markii ma ka joogto. marka masjidkii
laba ragcad ku dukatay masjidkii rasuulkaad aragtay kii hore meeshuu ka dhisnaay iyo waxa lagu daray oo dhan waad arkay kadib nabigaa ziyaaranaysaa liannu masjidkaad u soo safartay markaad masjidka tagtid waxaad noqotay nin masjidkii rasuulka joogo waa nebiga inaad soo ziyaaratid nebiga markaad soo ziyaaranaysid ma aha ulajeedadeeda ilaahay rasuulkiisi ou dana badanaan wataa intaas ii samey inaad leedahay rasuulka waa makhluuq oo afdalu lmakhluuqiin ah risaala loo soo diray adiga inuu wiil ku siiyo inuu xoolo ku siiyo inuu caafimaad ku siiyo nebiga shaqadiisa ma ah waxaad nebiga u ziyaarinay inaad kaga mahad celisid risaalada uu ku soo gaarsiiyey marka si aad leedahay nebiga markaad tagtid dadka saasay u jiraan safay ku jiraan meel oo cariiri lagu yahay waay tartiibkaada waxaa la rabaa khushuuc iyo aadaab inaad ku socotid dadaa waxay leeyihin dadka iska riix inta qayli kor hadalka u qaad ma aha saas laa tarfacuu aswaatakum fawqa sawti الnabiy walaa tajharuu lahu bilqowli kajahri bacdikum libacdin an taxbata acmaalukum nebiga sida asagoo nool loo ixtiraamayay yaa la rabaa asagoo dhintayna inaad u ixtiraamtid inaad ku dulqaysid lama raba adigoo edab leh inaad nebiga aad ziyaaradiisa tagtid oo aan qaylinaynin markaad qabriga nebiga ku aadid abubakrin iyo cumarna labada geesay nebigaa horeey abubakarna ku xiga cumara u dambeeya saas waay markaad nebiga isku aadisid assalaamu calayka yaa rasuul allahi fiiri marka nebigaa salaamo haysa ilaahay rasuulkiisu waa ku salaamay waxaad leedahay ashhadu annaka ballagta arisaala wa addayta alamaana wa nasaxta lilumma fajazaaka allahu can ilummati khayra aljazaa fasalawaatu ullaahi wasalaamuhu calayka yaa rasuul allah intaasaad ku salaamaysaa iyo wixii lahal ah af soomaaligeeda ilaahay rasuulkiisa waxaan ku maarkhaati kacayaa inaad risaaladii ama diintii inaadna soo gaarisiisay inaad maxaan ku yidhahda ammaanadii laguu soo dhiibay aad gudatay inaad ummaddii jidkii fiicnaay aad tusisay wajaahadta fillaahi xaqa jihaadihi inaad arrintaas inaad hergelisidna aad jihaad u gashood naftaada khatar u gelisid ilaahay rasuulkiisiyo ilaahayow nebiga adayaa yaqaana sida nooga abaalmarinayside ilaahu nebiga naga abaalmari wuxuu naga mutaysto walidaalika nebiga intuu annaga noo qabtay annaga waxba uma qaban karno inaan sunnadiisa ku dadaalno unbaan heli karnaa walidaalika ilaahay baa abaalmariyo wa ina laka la ajran ghayra mamnuun waxaad leedahay ajir aan kaa go-aynin baad leedahay ilaahay baa wuxuu uga abaalmariyey inta qof ummadiisa ka mid ah ilaa qiyaami saaca laga gaaro diintiisa uu ku camalfalayo qofkaas intuu camal falayna waa leeyahay intaas oo qofkaa qabtayna in lamid ena nebiga ay u dhacaysaa ummadiisa dhan waxay khayr qabatoo dhan nebigaa loo xisaaba idana adigana wax lagaa nusqaami maayo nebigana intii ummadiisa ay qabatay maadaama sabab asiga uu yahay intaas in lamid ah la siinaya darajaadkiisa lagu rafcinaya marka nebiga saas aad u salaamtid haddana abubakrinaad sidoo kale asalaamu calayka ya abaabakrin yaa khaliifata rasuulillaahi qad qumta bisunnati rasuulillaahi fii ummatihi bacda an sirta khaliifata rasuulillaahi iyo waxay lamid ilaahay rasuulkii abubakrow adna waa ku salaamay maxaan ku iraahdaa waxaan aaminsanahay ina tahay rasuulkii ilaahay ninkii bedelay markuu dhintay ummaddii khaliif madax u noqday sidii nebiga ou jeclayn ummaddii ku maamulay fa as'alu allaha an yakfira laka wa an yarfaca darajataka ina tirahda darajadan ilaahay kor ha u yeelo dembigaadana alla ha dhaafo sidaasoo kale cumarna u salaamaya si tartiib ah meesha ugu baxay waaba ziyaarati nebigi khalaas marka taxiyatulmasjid waa dukatay nebiga waa salaamtay khalaas marka 5 maalmood 6 maalmood in la deganaadaa meesha dhici karto ka faa'iidayso nebiga masjidkiisa inaad ku ictikaafto quraan ku akhrisad ku cibaadaysatid ku dadaal ay bayna faynatin wa ukhraa markaad maalin joogtid nebiga haddana soo ziyaara dhib ma laha
maalin laanna fursad haysataa inaad ku noqnoqsatid nebiga soo ziyaaratid aad waxay dhib leedahay mala waxaa la diidayaa dadka caamada in isaga dayatid dad waxaa jira muslimiin oo min kulli fajin ka yimid caalamkao dhan qaarkood waa la celcelinaya intay ninka nebiga ninaa meesha taagan oo dadka hagayo oon ogolayn dadaa waxay rabaan derbiga oo nebiga qabrigiisa ku jiro adiga arki maysid oo alaabaha ku daahan inay masaxdaan inay wax soo qaataan inay ooyaan inay yidhahan rasuulka ilaahay waxaanaan rabaasaan halay gudoba adiga waxaa lagaa rabaa inaad ismiisaantid nin sharciga hagaya inaad noqotid nebiga inaad jeclaatid hadday nebiga jaceylkiisa dhab kaa tahay nebiga sida ugu habboon ula dhaqan diintiisana uga dayo qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuuni yuxbibkum allah waxa loo socda ilaahay inuu raalli kaa noqdo waay waxa raallinimada ilaahay lagu gaari karana waxa weeyaan in rasuulka lagu daydo